saadog soontihiinba waxaan mas'uuliyad kaga ahaa xeer hoosaadka golaha shacabka runtii aan muddo dheer aan la maqnaa Soomaalidu waxay tiraahdaa qofka muxuu la maqnaa lama yiraahdee muxuu keenay baa la yiraahdaa waxaan isleenahay runtii waqti aad iyo aad u fara badan inaan ku bixinay xeer hoosaadka runtii wax aad u qurux badan waad ku farxi doontaana ilaahay hadduu yiraahdo waad ka dhax arki doontaan waxaan u maleynayaa muddadii fasaxa baarlamaanka hadda fasaxii dhamaaday fasaxii hore annaga fasax ma aan gelin guddigayga oo dhan shaqaan haynay wax badan runtii isbedel badan lagu sameeyay ilaa waxaan u maleynayaa gudoomiye wax ka bedel ilaa 4 jeer waan akhrinay inaan soo bilowno aan akhrino mar walba aan wax ka bedelno marka hadda dokumentiga markaan fiiriyo waxa ay soo baxday nuqulkii finalka ahaa oo annagu aan gaarnay ugu dambeeyay ma soo gudbin laakiin nuquladii aan diyaarinay mid kamid ah ayaan halkaan ugu jeeday marka taas ayada horta waa idinka raala gareynayaa laakiin guud ahaan waa diyaarsan yahay waxaad ku farxadaan ayaad arki doontaan wiiga soo socda ilaahay hadduu yiraahdo ma kana aakhirkiisa nuqulka ugu dambeeyay ayaan idin soo gaarsiin doonaa waan ugu talagalnay baarlamaanka inuu ka doodo marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin kulley xeer hoosaadka xeerba qodob baa jira sheegayo in kala fadhi walba fadhigiisa ugu horeeyo la hor keeno xeer hoosaadka golaha shacabka sidaa daraadeeda maadaama waqtigu inala dheeraaday ayaan islahayn baarlamaanka hadda fasax intuusan gelin qof walba inta la siiyo hadda uu soo akhriyo asagoo diyaarsan ama uu soo noqdaa marka insha Allah taala waxaan idinka rajaynaynaa inaad noogu cudur daartaan fasax intaan la gelina nuqulka ugu dambeeyay